waxaynu maanta daah furnay mid ka mid ah waxqabadkii guulihii u dabaaldega 60 guurada maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed oo aynu isugu nimid daartii midnimada astaan u ah midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee 60kii hana qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu amray in daartan laga dhigo si loo xasuusto midnimadii ummadda Soomaaliyeed barxadda midnimada oo ah beer ay ku nasan doonaan dadweynaha gobolka Banaadir iyo sidoo kalena dasxiis u iman doonaan dadka daneynaya inay arkaan 60kii daartii midnimada halkay ahayd soo booqdaan indhahooda ku arkaan maanta waa inoo dhammaystirantay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa inaga daah furnay si rasmi ah u furnay waxaan soo marmarnay fadhiyada kala duwan oo ina xasuusinaya mataanaynta koonfur iyo waqooyi iyo magaalooyinkii koonfur iyo waqooyi iyo mid waliba mid mataane ku tahay oo lagu ballamayo gabilay dhuusamareeb muqdisho hargeysa marka waxay tusaysaa 7 magaalood ugu yaraan oo koonfur iyo waqooyi oo ay dadku isugu imanayaan in leeyin halkaasaan fadhiyaa waa xasuusin daayirteen iyo bulshooyinka la xasuusinayo in midowgaasi dhacay midnahay ummadda Soomaaliyeed isu hilowday wada jir tahay 60 sano kadibna dib isugu soo hiloobayso wada hadallo midho dhal ah oo la isugu keenayo midnimadii dib loogu abqaalayo loogu yagileelayo loo meel marinayo ay hadda socdaan madaxweynuhu hormuud u ahaa aan ka wada warqabnay haddana gudiyada farsamada hawlahoodii galayaan marka waa guul weeye 60 sano kadib guul taariikhi weeye waanu hambalyeynaya gudoomiyaha gobolka Banaadir gacantu ka geystay in dib loo habeeyo daartan waxa kale oo hambalyeynaya General Bashiir maareeyaha hay'adda dhismaha iyo wasiir maareeyaha iyo gudidii dabaaldega oo shaqo badan goobaha taariikhiga ah inuu dib u furnay ka qabtay waxay runtii xasuusisay maansadii Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ee ahayd Muqdisho iyo Hargeysa muruqiya laxadkan kala maarmi karinow وزارتي midnimaynu u taaganahay midnimaynu u halgamaynaa iyo wada jir Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha wada jirto waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaruntanina beertani si rasmi ah ay noogu furan tahay maanta laga bilaabo